aynu shukri dhaqno ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaynu shukriga badino waynoo siyaadin doonaa marka waxaan leenahay ilaahay waa kuu mahad abaartii biyo la'aantii ilaahayga inaga soo jebiyo ilaahay nagu waaro ilaahay dalkeenana dal midaysan ka dhigo horta maanta waa maalin wanaagsan alxamdulilah rabbil caalamiin ducadii waa la aqbalo raxmadda baad aragtaa ilaahay roobkii noo shubay maalin fiican bayna insha allahu tacaala wax kala seexan doonaa inta la yidhaaho dhalinyartan horta markii la idin maqlay la yidhi dhaqdhaqaaq baa jira 6 gobol ah aad baan u baqaynaa anagu waxaan islahayn sidii arab springa ayay kacdoon samayn doonaan magaalooyinkay mudaharaad ka samayn doonaan magaaladaha farta guuxin markii shalitaan ogaanay halkay ergoyn soo dirteen oo dowladda xusbigan ku soo kulantaan dowladii iyo shacbiga waa relief way nafiseen baqi waa ka baxay tala fiican waa gaadeen ilaahay ma hadi way subhanahu wa ta'ala وهذا كان بوقتا إلى سلسلته قبيلك أي سكتشر شتين هي حركه يجي دارد اللي دوك القيميني إلى بربريسين أي كان بوقتا كان بوقتا كان مكان بديه دقيقتين وحا هبال حق صح إلى مبدأ كسعطان هذا خارج دونتين وطبعا هل خارج ويا لا ده كلميه وحي قال وطني ويا لا خارج كي وطن هو ساتجي لهذين لكن waxa ku socotaan mabda yeena future iyo mustaqbal yeelataan marka arqiseen sawabaha isku kalifayna isku tagtaan waxaan moodaysaa in qalbigayga kala baxdeen inta maanta ay sheegteen waa inta afrikana ragaadisay adduunkana kala reebtay musuqmaasuqa eexda qabiilka isku dulnoolaanshaha waa inta adduunka kala saartay oo marka aragtid magaalada xadka ku taala ee Mareykanka iyo u dhaxaysa Mexico wadanka la yiraahdo وباقالويكودا ستة وجالو كلا dadku waa isku dad climate-ku iyo cimiladu waa isku mid dhinaca Mexicana dadka ku nool waxay la nool yihiin dadka wadamada soo koriyo kale dadka Mareykanka xagga ku nool waxay nool leeyihiin de Mareykanka adduunka ugu dhaqaalaha badan halka waxa ku kala kaxeeyay waa systemka dawladnimo ay kala qaateen way marka dawladaha meel adduunka meel faqiir ma jirto waxa kala saaro oo kala hara hoggaanka kulba marka wadanka haya wadanka Singapore la yiraahdo waa wadamada adduunka maanta ugu taajirsan marka hore waxay ahayd meel yar oo baaxmijiriyo Ingiriisku dekad yar baa waxa ku nool Chinese Malaya iyo Indians oo Ingiriisku keenay oo shaqaale ka ahaa dekada 1965 kii markii ay ka baxeen ay ka goosteen Malaysia la isma lahayn way noolaanaysa ana waxa la wax dakhli way lahayn ma yahay waxaan dadka kale isirka ah hadana dadka waxa mideeyay ummad ka dhigay hoggaankii madaxweynihii marka Lee la oran jiray maanta wadanka adduunka ugu taajirsan waa model adduunka la qaato Singapore وتندوني كنا سومانا إن شاء الله تعالى استقبل أفكارنا دون إن شاء الله حوالي ما أنت دلكينا وحي نجا تاجر سنة مجرته بضنا يقولنا هاي استيد بقولي كنت كيلومتر وحبك لما صوبحنا وحلينا البيرات وحبك ما بيرنا وحلينا هاي معدنتي وحبك لما صوبحنا وحلينا حوله ويد برجو أيامبا markii hore qaladkeenu sameeynay in intaas inagu dhacaan saxba aheedo talada dalkeena meenu haysan
laakiin 26 sanadood oo aynu nabad ahayn haddaan soo yareeyaba waxa weeye ilaa 97kii oo nabad ahayn markii cigaal dib loo doortay wax Allah wax inahayo dhibaato ma jiray wax inahayo inagu baa isku meeraysanay wadadii lagu jabay raacnay qabyaalad qaadnay qaadanay magaalaas musuqmaasuq maanta waxa keentay in rajadii inaga lunto dhalinyarteeni ay badda isku tuurtay dhalinyarteeni qaar ay moodeen inay xamar dhaanto qaar ku heesiyeen farmaajo igeeya waa hopelessness waa waxa taala waxa weeye markuu qofku quus gaaro ayaa weey qaladka weyn ee dhacay ee maanta Soomaali baabiyay wuxuu ahaa isku darkii 60kii buu ahaa 60kii haddaanay arrintaasi dhicin sida wadamada Afrika ayaan iska kaca ku filheen inoo laba dal ah oo isbedel yaala sida Djibouti been dal noqon lahayn maanta 26 sanadood markaan la soo noqonay Soomaaliya inaguma lahayn awood ilaahay moo jecel awood nagu lahaa ma laha dadkeenu heegan bay ahaayeen waad arko dadkeeni wadooyinay bay dhisanayaan wadadii biyihii bay samaysanayaan isbitaaladii bay samaysanayaan taagtood laakiin waxa maqan shaqadii dawladnimo maqan marna kuma seexan inay Soomaaliland 26 sano saaw ee kaaniso wala marna ku seexan in 26 sano bilaa itraaf noqonayso wali kuma seexan waxa askeenaya waxa weeye waa hoggaanka weey uma daan hoggaan lahayn aragti leh waxa weeye shini bila boqora binaadamka uu isaga waxa weeyaan oo kale waa social animal wala anu waxaan u imaa halkan oo cudurnimi Scandinavia oo wadamada Afrikaanka u fiican buu Yurub u fiican Norway Sweden Finland way ka sareeyaan Yurubta kale halkan islaan ku noolaa waxaan jeclaanay inaan teena ka dhigno Scandinavia oo kale ka dhigno taasoo tan magac u qaadanay justice and welfare system welfare waxa weeye inaan dadku kala tagin weey waxa weeye in dadku u sinaada resource kala sinaada dadku u sinaada tacliinta dadku u sinaada shaqada dadku u sinaada biyaha inaan wadada laga duwin meesha maskuulku degan yahay sida xaafada daami oo kale oo loo leexin xaafadaha kale taajiriin tirjinti waa inay iskuulka miyiga jooga iyo ka magaalada jooga waa in macallimiin isku mid ah helaan oo ardaydu xaq wada yeelataa waxaan walaalahay ku midoobinaa inaan dalkeena dhigna dal la wada leeyahay loo siman yahay waxaan burburinaynaa qabiilka waxaan dhisaynaa nation qaran baan dhisaynaa insha Allah taala waxaan baabiinaynaa waxa la leeyahay waxa diinteena ka soo horjeeda kitaabka Ilaahay iyo sunnada rasuulkeena kor qaadna subhanahu wa ta'ala ilaahay Allahu akbar baan leenahay waxa insha Allah taala tawxiidka calankeena la ilaaha illa Allah muhammad rasuulullah ku taala kaasaynu ku dhaqminaa kanaxu nafta waa kaasoo dhaxna insha Allah taala waxay noo balana inaynu musuqmaasuq la dagaalano waa cancer musuqmaasuq jirku dilaa si jirka u dilo musuqmaasuq ayuu dawladda u dilaa waxaanu sameeynaa xoolaha oo doofin jirno kaliya waa ka duwinaayo waxaan dadkeena u orient gareynaa inay export sameeyaan oo macdanteena beeyadeena kalluunkeena inaan diraadoono insha Allah taala waxaan la dagaalaminaa qaadka la dagaalaminaa qaadka waa la dagaalaminaa waa droga weeye waa droga waa maanduuriya weeye uu ka tagay inuu yahay qowta awliya waa qowda shaydaan waa qowta shaydaan hada weeye Ethiopia la xisaabtamina walaalahay insha Allah taala Ethiopia waa inay weedaarsanaa waxay naga qaadataa xadka furtaa alaabadu isku gudbaan ma hayna alaabteena ko tarbaan ku gashay ma dhacayso walaalahay qarannimadeena maxaynu ku difaacinaa
عيدا بينكم دفاعنا عيدا ولا أكسب بينكم دفاعنا مشاعرك في عنسين إن شاء الله تعالى عيدا الله ينقبه أيام الصومية سنة وهي بدلي وهو كعصر قاسين الدنيا إن شاء الله تعالى وينو ديار قرونا دفاع الدلكينا أردينا بارمان كينا جندي ريسيف ما كبرين التوابر قلينو أي ريسيف إنه هانا عيدا كديفنس إنه قوي سيفل ديفنس بيننا نقول إن شاء الله تعالى توتين ولا حيرنا إن شاء الله تعالى وأنا واحد أدون إلى هيك شيء واحد أبدا وحوي واحد وقالسن إنه هاي سنوات بين آدم وضدك أي مال قشرنا والله ما حين مال قليلنا تعليم كانوا صارنا وحين استقلنا عافيمات كانوا صحوش صارنا أدونك أي الله معاملنا الباب دين وفرنا سي أدونك وحوق قشرنا دلكينا وحين سمينا وشوي وناكسنا ومد سوتشي أدونك الحق قشرنا سمينا شرع في عن أضلك كلا صارنا سمينا شغاليه هنا حير باو سمينا كوستاتك ما كو حنوسل عقل سين حير باو سمينا ككبليريا مقاحيدا كشقينيا اللي الصبح محمد بيرك دغيا توجه هذا بيرك دغيا شرعي لا ينو سمينا ان شاء الله تعالى وفكست حقوق باو سمينا dalka nidaam baa u sameeyna sharciga soconaya sharciga qabiilku socon maayo maanta dalkeena waa wuxuu baahan yahay hiil buu baahan yahay waa waqti 26 sano ka bacdi ayaa dooraatay intii niman ka yimaadeen xamar ayay intii yimaadeen buuhoole ayay ciidan baan u qaramaynayna yani waa waxa laga xishooda waa inuu doqonimo inta xamar diyaar laga soo qaato in ciidanka halka joogay maleeshiyada la ilaa waxaanu ka bilaabinaa ciidankii Soomaaliyeed taas waxay tusaysaa inaan baylanahay taas waxay tusaysaa inaan shaqayneen taas waxay tusaysaa inaanu isku maqanahay inaan foojigneen waxa ka dambeeyay idin sheegay arrinta arrintaasi waxa weeye waqti quraanku sheegay taquluna ma la tafcaluun waxaanu sameeyeen ayaa ku hadlaysa inanka yara degmadiisa daynu la aan tagi karin ra'iisul wasaaraha dalka lagu boobo laba magacaabay inuu ilaahay Allah ciidamadii baan sameeynaya Soomaaliya buuhoodaan ka sameeynaya wax suurtagal ma aha uu iska hadaaqay waa dreaming man waa lagu yaqaanaa deegaankaasi markay awood helaan inay riyoodaan oo Xasan Sheekh maan oran jiray the dream man of Muqdisho kana waa dayn ila man of dreaming ma deynama waxa la rabaa weeye in ciidamadii Soomaaliya la sameeyay oo sameeyay Sheekh Shariif sameeyay ee Xasan ka dambeeyay inta la baabiyo ciidamo farmaajo la sameeyo farmaajona buugii adeerkii uu dib u soo celiyay Soomaali baabiyay oo ciidamada soo u leeyo gaar ah oo qabiil ku sidaan uu sameeyo dooniya laakiin waxaan filayaa in taas suurta gelin in saacada dib ugu celiyo oo dagaal sokeeyo Soomaaliya hadana abuuro marna noqon maysa buuhoole meel lagu dagaalamo oo reer Soomaaliya ku dagaalamo fidmo ay doonayna ka dhaxdido fidmo diyaar uma aha reer Soomaaliya fidmo nabadii waa wadnay wada hadalada khaatimo waa wadnay waanu soo dhameysana khayrna ku soo dhameynaysa waxaan leenahay waa inayo waa ka bilaabina Soomaaliya si loo undermine gareeyo loo majaxabiyahay waa dalkiina hagaajista walaalna dalkiina hagaajista shisheeyaha iska saara shanta dawladood iska daaya dawlad baa hay'ada aloora Italian tiini samaysta Soomaaliland way socotay xaraan bay tahay soo noqoneen baabacdaad ma ka dhicay maayo dadka shacbiga hay isku dilin dadka shacbiga ha nagu baleeyeen 150 ka badan 250 way fadhiya reer Soomaaliya oo ku nool oo nabad ku qaba Soomaaliland ilaa boorama ilaa ceergaabadeen haddii aad dadka fidma ku abuurtaan dadka wax noqonaya ma reer Soomaaliland waa dadkiina nala nool ee gabootiga aan siinay maanta dhulkiina aan ku noqon kareen dhulkiina aan nabadi ka jirin ee loo sameeyay dawlad lagu booba khayraadka Soomaaliyeed ee loo sameeyay dawlad lagu aaso
qashinka nuclear-ka badda Soomaaliya Indian Ocean-ka Mareykan iyo Ingiriis maxay ku yihiin ma ka naxayaan Soomaaliya ma kan maxay u yihiin waxba uma waxay doonayaan inay ka faa'iideystaan khayraadkooda gurtaan badooda ku aasan cudurrada inay kala weysiga ku qaasaan waxa soo muuqda waxa u muuqda Soomaaliland maxay u nooshahay maxay nabad u heleen iyo u muuqata waxa leenahay min farmaajo wuxuu ka dhaxadlayaa ra'iisul wasaaraha laakiin waqan khadka waxa wataa waa ina farmaajo waxaan leenahay buugi adeerka burburiyay Soomaali burburiyay ha soo cilmi baalena nab Soomaali nolol bay u baahan tahay walaalnimo u baahan tahay sharafteedina soo cishto u baahan tahay laakiin ha buurhoodna alla ka dhisaya ciidamada Soomaaliyeed waa declaration of war laakiin waxaan ka xunay deemaan iska soo gaadhan aniga reer daynayla ma jirtee waa ninka halka ay wax isku kaayad diriya dadka reer Soomaaliya isdil maayaan buuhood la xabad ula tagmeyn iyaga ayaa dib u soo degay dawladana waxaan leenahay mar dambe haday diyaaradu ku soo degto aan inagu fasixin buuhood haday ku soo degto meesha noo baneeyo marka aan ma jirtaan wala qabsanayaa we have to defend and dalka hagaajin waa very serious يعني dal dagan yahay oo inta xamar laga yimi ciidan laga qortay adduunka ma dhicin Soomaaliland ay canayo hadhicin dal lagu ma waa inaan wax iska celinahay waa inaan baraarugnaa waxaan leeyahay walaalayaal anagu dalkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo marna la ilaaha illa Muhammad rasuulullah anaka soo dhici maayo laakiin waxaan leeyahay Soomaaliya la isku dirin waxaan leeyahay madaxda reer Soomaaliland labada xusbi waxaan leeyahay shalay tahay la waa inoo dagaal bay lahaayeen adeer dalkan dagaal sokeeyo dama ka dhici maayo qofkii doonaya inuu wadanka hoggaankiisa qabtaa si sharci ah hawl loo hakada ay qabiilka qofku maha ilaa la xukumo dambiile maaha dawladda waxa leeyahay dadka qabataan amba xusbi ahaada amba dhalinyaro ahaadeen waa in sharciga la mariyaa waa in si sax loo mariyaa waxa leeyahay qoorinka laga xidhoona rabshada laga daayo dalka maxkamadda hala sugo laakiin mudaharaad la sameeyo tolaay la yiraaho taasi dalkeena adan faa'iido kuma aha dalka faa'iido ma aha saddex xusbi baan ahayn nidaam baa lahayn waa wada socon jirnay labada xusbi macaaridka waa ismaqli jirnay laakiin maanta waxa jira in tolaay socoto tolaay Soomaaliya ku socon mayso waxa la inuu ishaaqsaday waxa weeye waa marka inageena difference-keena kala maqnaasheena qalbigeena kala jeeda iyo signals anu waan dirdirina la ina ishaaqsaday laakiin waxaan ogeyn inaynu markaynu leena doonto aynu midowno oo aynu leenahay dhabar la cunee shaf la cunaa aanu lahayn marka waxaan dalka aynu mid ku gaarsiino nabad wanaag doorashooyinka dawladda waxaan leenahay dawayna shaqaysaan waxa weeye laba system baa adduunka ka jira mid waxa weeye systemka ra'iisul wasaaraha systemkiisa Ingiriis oo kale parliamentary system baa leeyahay waxa weeye marka doorasho la geliyo wasiiradu way iscasilaan way ka baxaan waxa wadanka wada dhiijiyada wada ninkii wasiirka isagoo kula siman ayuu xusbinimadiisa iyo baarlamaanka ka soo sooraa laakiin nin wasiiro campaign gareynaya oo lacagtii wata oo gaarigii wata lama ogola midna waa kan president systemkeena u qaadanay president system waxa weeye madaxweynaha ayaa ordiya ninka musharaxa wasiirku shaqadiisu qabanaya ma arkaysa intaas aragtay Clinton amba Obama wasiir barbar taagan yahay ma hadda waxa socota in dalkii la ilaabay ninka sabay isla Muuse soo baxayee yaanu wasiirnimada hadhow ka eryin isaga daba yaacaya hadda waxaan leenahay madaxweynaha mar haddaanad ordayn madaxweynuhu wasiiradana ay doonayaan inay campaign gareeyaan dawlad samee caretaker government wasiiro technocrats on xusbina ahayn samee
وسيرنا ده موسى هلا شقيانه هلا كامبين كريان لكن معها إن الشقة دلك إنه وين هو تاجا إنفليشن إنه وين هو تاجا تأواري إنه وين هو تاجا الصومالية وبلاوده إن عندنا ما يقرأسو إن وسيرة إن أي موسى نسنا وموسى وان كوف هذا يكون شقيان وحصور تقلي معه أنا والله هرتقف وقت كيسان يا فيصل دانا هاي دلك يوم أركيه وشركة سيدا دعيو ما أقلاني وحنو ماري دون بس وضوي كران ماري دوننا هدان دولد عن شقدي قبسة أو كهري كامبين أي وضان حسب كل مية وقريان يدني كدينين وحنو تو كلفيسان إن أنو شرنو مدشي كعنو وضاني كعنو متعلمتك كعنو أنو سمعنا شربت بعد قرن سوماليا تاسان لو كلفستان هذا شقين ويدان لأنه ما أقولان إنه إن ذلك أنا أتوسو تاجن أو بابه أو أنا كم لقى قرطبه ليه لقى يمادو بريتنا بدن ليه يمادو أو لاسكور ليه يمادو وحنطول قاعد النما شعب الرئيس وما نوح أقولان يان ما له صراحة ولا واحد له عوارتي فوق كوينو داي ما أنت دت كينا قاچا هايسا فيرمي جيني قاچا هايسا أنت هاسوت جينا هايسي عباريو أفرتاكم إنه كنا بريو تركي بينه كنا بريجي كهر موجاني يا أنتي كويد موجاني شين وحورين السوق المترو ما أنت دت كينا مقروب كاسيران وعنتو عيان وحوي وبختيا وعلى أي شيء ما له وجه ونك ما له تمسيات كشيء قبل سجار عرورة هايسطها أو أورله أو ثري كتجين أو عروس سجار عرورة وحي أكر السلع أيكو صباحين وحي كلامكو صباحين من أم شيء وكلي جيت شوكته أو وحي بيعرف كجلسان هيني ورتدلت كيلو ساسو بابا سيو بيله وياه قد العبارات صحن بالله معمولي أرين قرن لقى ما دقين وذا لو ديبي يوي دلالين لكن هير كي سارن تي سولو سمي من الأقبال كرمها ما أنت لما إلا ما روك هدو داي حرات كيف بحيه قاشدي يحول أنت ويتاجنت وين قرشلو يمادا لقول مدا دتك حول قارسية إنفليشي وهالكيسي هو يا بابا ومن ما ينقص صوصه لكن من بعد شيء يا داليرو رجدا إما كأموتشين وحنا كذا دمنا ودشير بالغ دمنا رجدا هيسان وحنا كل سنة الفوق كائن هيسنة دولد أرق ما كل سنة إن شاء الله تعالى ما أنتنا وحوي مر هذاك علين وهيريدي إسكت تورتين دانيالي ما توصي هيريدي ما تورتي محمد ما تورتي يا دل wanaagsan oo ku noolaato ku guursataan oo ku nasataan bay wada dhisnaa insha Allah ta'ala wa ma asantiin wa salaamu alaykum